waxaan wada ognahay wakhtiga iyo dadaalka naga galay dhismaha ciidamada qaranka iyo meeshii laga keenay maanta waxaa nasiib darro ah wiilashii dhallinyarada ahayn oo aan ku naaloonaynay inay qarannimada dhidibada u aasaan inay dad Soomaaliyeed oo mas'uuliyiina oo raba inay dareenkooda muujiyaan doodna ka qaba nidaamka doorashooyinka iyo dib u dhaca inay soo weeraraan waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqno ciidanku wuxuu ku dhisan yahay sharci wuxuu ku dhisan yahay mabaadi' dowladnimo hadduu ka gudbo wuxuu noqon ciidan ma aha halkaas in la fahmaa la rabaa ciidanku wuxuu ku dhisan yahay sharci hadduu sharcigaas ka gudbo ciidan ma aha waxuu sameynaya waa fal dembiyeed qofka sameeyey iyo qofka soo diray labaduna waa dembiilayaal ilaahay idankiisa maalin waxaa imaan doonta cadaaladda la hor keeni doona shalay markaan dhisaynay si hagar la'aana dadnimo ah ayaan u dhisnay waa u hagar baxnay maanta in naloo adeegsado aad iyo aad iyo aad aan uga xunna waxay jebiyeen hankii qarannimada waxayna dalkan u horseedeen niyad jab iyo dadka Soomaaliyeed inay ka hanjabaan ciidamada qalabka sida sidaas darteed waxaan leenahay u soo laabta caqligiina ku soo laabta sharciga annagu waxa aan dhisayno iyo waxaan u taagannahay waa dowladnimo haddaad u haysatiin inaan dana gaara ka shaqaynayno dana gaara kama shaqaynayno danaheenna waa ka soo tagnay waxaan u taagannahay qarannimadu inay istaagto dalka in doorasho uu galo waxa ugu weyn oo maanta in laga shaqeeyo ay tahay kaas waaye yaa ku guulaysanaya macno gaara nooma samaynayso waxaan rabaa mar kale inaan ku celiyo arrinta xurriyaadka madashu waxay ka taagan tahay meesha ugu dambaysa waa lama taabtaan xuquuqda dastuuriga ee sharciga oo ballan qaaday arrintaas diyaar u manihi inaan ka kaftano